maanta runtii waxaynu galaynaa falanqaynta buug aad u fiican. buuggan magaciisa waxa la yiraahdaa will power doesn't work. macnaheedu ay tahay iraado oo kaliya ama rabitaan kaliya ma shaqaynayo. buuggan waxa qoran Benjamin baa qoray. buuggan ciwaankiisa markaad eegto waxa macnihiisu yahay inaad tiraahdo rabitaan xooga baan leeyahay oo aan ku qabsanayo hawlahayga oo gudahayga ayaan iska diyaarinayaayo iraadan leeyahay qawiya taasaan wax ku qabsanayaa taasoo kaliya ma shaqaynayso. maxaa shaqaynaya haddaba buugga markaad u daadegto gudihiisa waxaad ogaanaysaa wuxuu ka sheekaynayaa deegaanka guusha oo macnaheedu yahay haddii deegaanka kugu hareeraysan aanu kugu caawinayn inaad guusha gaadho inaad wax qabsato inaad ahdaaftaada gaadho haddii deegaankaasi aanu ku caawinayn meel ma gaadhisid. xaqiiqaduna waxay tahay buuggan sheekadu ka sheekaynaya waa sheeko aad u muhiim ah waayo qofka hadduu irahdanayo anigu waan dadaalayaa awoodayda waxaan isugu geynayaa inaan wax qabsado ahdaafteeda aan gaadho xirfadahan ku dadaalayaa anigaa iswadaaya muxuu haaye nafteyda waan xakamaynayaa waxaasoo dhan way fiican yihiin laakiin kaligood ma shaqaynayaan. waa xaqiiqo la ogaaday weeyaan kaligood ma shaqaynayaan waayo waxa markasta meesha taagan deegaan kugu hareeraysan oo haddaanu ku caawinin oo aanu guusha kugu caawinayn yana hadafkaaga gaadho ku qabanaya. haddaba waxaynu ka sheekaynaynaa buuggan markaan ubucdiisa u daadegno waxa uu sheegayaa sideebaad u samayn kartaa deegaanka guusha deegaanka sideebaad u abuuri kartaa deegaan kugu saacday inaad guulaysato inaad horumar gaadho inaad wax qabsato inaad hadafka gaadho deegaankaasaad u samayn kartaa. waxa uu sheegayaa 5 arrimood haddaad samayso 5 arrimood waxay keensanayaan in deegaan ku caawiya oo kugu caawiya horumarkaaga inaad yeelato ayay 5 arrimood kugu caawinayaan. laakiin sadawada 5 intaan ku sheegin 3 arrimood oo ka horeeya warta waa in laga helaa si aad 5 u gaadho 3 arrimood waa in laga helaa. koow waa in laga helaa waa inaad hadaf leedahay marka ugu horeysa waa in hadaf xadidan oo cad waa inuu jiraa oo sheegaya halkaad u socotaa dhinaca aqoontaada dhinaca dhaqaalahaaga dhinaca caafimaadkaaga dhinaca familigaaga dhinaca bulshadaada waxaasoo dhan hadaf cad oo aad ugu talagashay inaad gaadho waa inuu jiraa. lambar 2 waxa kaloo idin muhiim ah waa inaad qaadaa mas'uuliyadda naftaada waa inaad adigu mas'uul iska tahay oo meesha adigu aad taagantay adigu aad iska qaadi karto oo cid kale aanay ka qaadi karin taasna waa inaad ogaataa. walaa taziru waziratun wizra ukhra qofna qof kala qaadi maayo adigu waa inaad markaa maskaxda gelisaa war halkan aan taaganahay aqoonta halka aan ka gaadhay maanta dhaqaalaha halka aan ka gaadhay shaqada halka aan ka gaadhay anaa iskugu wacan بدي إسكب بديلي كرتة كور إسكجا قاعد كرتانا وانيك قضب كان وين الآمنته قضب صدحات باتشرة أو أيتين الآمنته أو ما حي إسبدل ير أو كهبان أو أتسميسا إن أنا فضودين أو مهم يحي هاي سأرن هدي أنا نسبدل وي سمينين أو لا تعبان كرو ماله مصعدة أما واحد بدل ما نقبسن إسبدل ير حتى هذا السميسا أو نعهر مركها وأبو في عيه مركها هي رئيسين isbedelada yaryar ee aad sameynayso dhinaca horumarkaana yaana kula yaraan waayo way is urursanayaan oo aakhirka buur bay noqonayaan horumar way ku horseedayaan. hatta 3 arrimood adoo maskaxda ku haya ayaa waxaan u daadagnaa 5 arrimood buugan u sheegay. ariga koowaad wuxuu yahay deegaanka kugu hareeraysan inuu ku caawiyaa waa muhiim waayo deegaanka kugu hareeraysan hadduu xun yahay oo kugu caawina horumarka uu kula degaya waxaana tusaale muuqda ama diil kugu filan ninkii xadiistu ay sheegaan rasuulullaahi maxamed uu ka sheekeeyay ee 100 nin dilay ninkaas muxuu sameeyay nin buu tagay nin sheekh buu tagay ninka sheekh uu tagay muxuu ku yiri sheekhu tala fiican buu siiyay wuxuu ku yiri hadaad rabto 100 nin baad soo maaha maadaama aad 100 nin aad dishay si ilaahay toobada kaaga aqbalo deegaankan aad ku nooshay ka tag deegaan kala tag. ninku sidii buu sameeyay sidii markuu sameeyay ninkii u dhintay ilaahay uu dambi dhaafay. ninka markaa already talada ugu muhiimsan leeyahay maxay ahayd deegaanka bedel way deegaankan aad ku nooshahay baa leeyahay ayaa keenaya inaad hawshan aad gasho. lama oran salaad badan samee istighfaar badan la kaala lama oran maxaa leeyahay deegaanka bedel
marka deegaanka kugu hareeraysan inuu khatartiisa leeyahay wato qodobka maskaxda gal haddaba qodobka koowaad deegaanka lagu hagaajiyo wax weyn daawada inaad nolosha fududayso weeyaan deegaanka kugu hareeraysan fududee waxa kugu hareeraysan deegaanka marka laana deegaankaaga fududee waxa weeye deegaankaagu waa maxay deegaankaagu waa wax kasta oo bini aadan ah ama ashyaa ah ama afkaar ah oo kugu hareeraysan oo saameyn kugu leh marka waxa lagu leeyahay wax kasta kugu hareeraysan saameyn bay kugu leeyahay waxyaalaha kugu hareeraysan ay dadku ka mid yihiin ashyaadu ka mid yihiin afkaarta iyo waxyaalahaas oo dhan ka mid yihiin waa inaad yaraysaa baa lagu leeyahay fududee baa lagu leeyahay tusaale ahaan waxa lagu leeyahay haddaad saaxiibo fara badan leedahay oo calaaqaadkaagu aad u fara badan yihiin oo deegaan noocaas aad leedahay saameyn bay ku leeyihiin hadafkaaga inaad gaadho waayo markaas dadka kugu hareeraysan ay fara badan yihiin way ku mashquulinayaan marka goortaad ugu tala gashay inaad wax qabsato oo wax akhrisato way ka mashquulinayaan waayo asxaabtaadii baa badan 100 telefoon baa kugu soo dhacaya marka waxa lagu leeyahay ugu horeyn horta yaree waa inaad yaraysaa oo nolosha aad fududaysaa baa lagu leeyahay waxa la mid ah deegaanka ashyaada kugu hareeraysan haday fara badan yihiin ka waran hadda intaas oo telefoon soo iibsato maxay imanaya de kolba mid laga soo qaro oo maanta kolba mid aad qabato waxa lagu leeyahay yare maxaad iskugu badanaysaa telefoonada iska yare baa lagu leeyahay waxa la mid ah haday kugu farbadan afkaartu iyo waxa ku soo galay intaas oo waxba daawanaysa intaas oo waxba ku soo galay kala duwan marka waxaas oo waxay saameyn ku leeyihiin deegaankaaga marka mabda'a koowaad wuxuu kooranayaa horta fududee oo waxaan kugu hareeraysan fududee tusaale ahaan kale imika hadda dharkaagu badan yihiin dhar fara badan baad leedahay subax marka aad soo toosto waxa laga yaabaa in kugu qaadato saacad inaad kala doorato dharkaaga marka deegaankaasi kuma caawinayo hadafkaad gaari lahayd inaad waqtigaaga ka faa'iideysto kuma caawinayo way waqti kugu qaatay dharkaaga aad doorato isla dharkaagu hadii koobeen ka waran markiiba soo saaranaysa ka baahanta marka soo deegaanka kugu hareeraysan dadka kugu hareeraysan ashyaada kugu hareeraysan afkaarta iyo waxyaalaha kugu hareeraysan waxaasi ay fara badan yihiin oo aad badiso waa marka soo deegaankaagu saameyn kugu samaynayo oo rutii uu soo jeedanayo marka qodob mabda'a koowaad wuxuu kooranayaa waa inaad yaraysaa fududaysaa oo iska yaraysaa deegaanka faraha badan leh ee saameynta kugu leh qodobka labaad waa maxay qodobka labaad aad buu muhiim u yahay qodobkan wuxuu ku leeyahay waa inaad defaultka aad ka dhigataa by default waa inaad ka dhigataa oo asalka ka dhigataa deegaanka ku horseedaya guusha deegaanka guusha ku horseedaya waa inuu by default ku yahay asalka waa inuu ku yahay daawada si aad u fahanto waxaan uu la jeedno by default ama asalka inaad ka dhigto deegaanka guusha waxaan la jeednaa waa in deegaanka guusha uu ku noqdaa shay aan kaga baahnayn shaqo badan oo tusaale ahaan by default ba marka aad hawsha aad galayso deegaankaas uu yahay ka ku yaala asalkaba tusaale aan ku siiyo gurigaaga ayaad soo gashay gurigaaga maqsinka markaan soo galo fadhiga maxaa ku yaala waxa dadka qaar in fadhiga uu yaalo TV-gu halka uu yaalo halkana kuraasida fadhiga ay taalo halkana miis yaalo miiska waxa laga yaabaa remote-kii inuu saaran yahay TV-gu saaran yahay naanac yarna saaran yahay deegaankaasi waa maxay by default deegaankaasi asal ahaan qofka soo gala wuxuu tusinayaa uu leeyahay markaad kursiga ku fadhiisato remote-kana qaado TV-gana daar marka by default waxaad ka dhigatay qofka ku soo booqda markuu gurigaaga soo galo oo fadhiga soo fadhiisto intuu remote-ka qaado inuu TV-ga daawado naanacana uu cuno hadad qabka ka bedesho ka waran gurigaagiiba waxaad ka dhigtay fadhigii markaad saa u dhigtay ayaa miiska koowaad sida waxba u yaalaba kutub baa yaala buugaag baa yaala marka by default waa maxay qof kastoo guriga kuu soo gala markuu saa kursiga u soo fadhiisto oo miiska sidaa uu soo fadhiisto maxaa markiiba uu sameynaya buugaga mid kamid uu soo qaadaya marka by default asal ahaan meeshii maxaad ka dhigtay qof kastoo guriga kuu soo gala inuu wax akhriyo marka qofkaas in alla intuu wax sugaayo buugaa soo akhrinaya halka ka kale in alla intuu wax sugaayo uu filimka daawanayo ama TV-ga u shidanayo marka waxa lagu leeyahay wal hadaad rabto inaad deegaankaaga ka dhigto deegaan guuleed deegaanka guusha aad ka dhigto waa inuu defaultku ku ahaadaa ama asalku waa inuu ku ahaadaa
wax kugu horseedaya guushaada waa noqda oo hadafkaaga ku xaqiijinaya haddaad rabto inaad caruurtaada ku abuurto inay wax akhristaan oo aad rabto dabeecadda inay yeeshaan oo deegaanka aad rabto inaad u abuurto deegaan waxbarasho aqoon waa in qolka ciyaalku u farabadan yihiin ay kutubi ay taala حتى عيارة العيارة وين نقطة عيار أقوم كسابسن iyo karti iyo qofku wax ka faa'iiday wayna noqotaa marka hadii aad default ka dhigto ama asalka hadda sida ka dhigto ciyaalkaaga markay qolkii soo galaanba waxay galeen wixii lagu ciyaarayay aqoonta ku saabsanaa ee numberska ku saabsanaa ciyaarayaan ama buuga bay akhrisanayaan laakiin hadii aad qaabka ka duudo oo qolkaaga uu noqdo qol markay sida ciyaalku u soo galaan markiiba halka ay ku arkayaan TV-ga yaala iyadoo remote-ka halkan yaalo oo musalsalkiiba uu taagan yahay diyaar u yahay maxad ciyaalkii adigu aad ku abuuraysaa inuu deegaanka noqdo deegaan la daawado musalsal iyo film oo markay soo galaan bay daawadaan saadaan qodobkan waxa uu ku leeyahay waa qodobada ugu muhiimsan bini aadamku ma jecla hawsha adag ma jecla inuu wax qabto fara badan oo uu raadina ma jecla haddii aad rabto inaad gool gaadho hadaf aad gaadho deegaanka kugu hareeraysan oo dhan ha noqdo by default oo markaba wax horeba waxaad ka dhigtaa inay u sameeysan yihiin qaab kugu caawinaya hadafkaaga tusaale rafud aan ku siiyo waxaad rabtaa inaad caado ka dhigato inaad wax akhrisato oo akhriska in caado ku noqoto rabtaa markaas maxaad sameeysan gurigaaga habeen sariirta hurdada aad ku fadhiisato halka ay miiska yara yaala ayaa intaad soo qaaday kutubta ugu fiican ee la akhristo ayaa saarta miiska aad cuntada ku cuntana waxaa dhigtay iyadana kutubta ugu fiican la akhrisaa dhigtay haddii aad qaabka u dhigto deegaanka saa aad ka dhigto habeenkii markaad sii seexanayso intaanad seexan markaba ishaadu maxay qabanaysaa buug bay ku dhacaysaa buugii bay soo qaadaysaa iyadoo akhrisato ma is arkaysaa marka deegaankii maxaad ka dhigtay deegaan kuu horseedaya guushaada laakiin haddii ka waran aan iraado hadafkaygu waa inaan buug akhriyo laakiin buugga intaan meesha ka qaado meel aan khaanad kala geeyo naftu inay kacdo oo ay khaanada fog ka soo saarto buug ay akhrisanayso naftu ma jecla caadadaas markaa way ka xumaanaysaa caadana ku noqon mayso way habeen kasta inaad kacdo buug soo qaadato soo raadiso way kugu adagtay laakiin markuu buug sida ku ag yaalo oo marka saa ugu helayso naftu markaa caado waxay ka dhigan kartaa wax akhriska marka waxa lagu leeyahay qodobkan ku oranaya si guud kugu sheego inaad noloshaada ka dhigto by default wax ka soo ku horseedaya inaad guushaada gaadho waxaad rabtaa jimicsiga inaad runtii muxuu ahaayay aad samaysaa rabtaa maalin kasta by default maxaa la rabaa inaad ka dhigto waa in jimicsiga meesha lagu jimicsado kugu dhow aad ka dhigataa meesha aad casarkii aad imanayso maqaaxidaad ka sheekeynaysa iyo haddii isku ag yaalaan meeshaad jimicsiga ku samaynaysaa maxaa imanaya shahaaga yare macaan marka soo qabtaba inaad tirado war wata meesha lagu ciyaaray galday laakiin ka waran haddii meesha aan casarkii imanayeen shaah ku cabaayo iyo meeshaan raba inaan jimicsiga ku sameeyo saacad u dhaxayso way adagtay inaan meesha daa'imo waa adkaanaysa waayo intaan sii socdo waan caajisaya marka waxa lagu leeyahay noloshaada waxa alla wixii ahdaaf rabtaa inaad xaqiijiso noloshaada ahdaaftaas oo dhan waxaad ka dhigtaa deegaan kugu hareeraysan inay kuu fududeeyaan markaad isra qababa wixii markiiba wada heli karto haddaad rabto inaad kubadda ciyaarto oo rabto casarka inaad ciyaarto waa inaad diyaarsataa kabi sportska aha garamaanti waa inaad diyaarsataa wax kasta inay diyaar ku yihiin laakiin waxa haddaanad haysanba oo sida kubad ciyaar markii maxaa kugu soo dhacaya horta soo iibso alaabta kadibna dib bay kaaga dhacaysa qodobka waxaan ku soo koobaynaa war haddii aad rabto inaad guul aad gaadho deegaanka kugu hareeraysan waa inuu noqdaa deegaan guusha kuu horseedaya sideeba kugu horseedaya waa in asalku noqdaa shay kasta kugu hareeraysan qof kasta kugu hareeraysan iyo wax kasta kugu hareeraysan waa inay noqdaan wax ku caawinaya by default waa inay u sameeysan yihiin inay ku caawiyaan qodobka saddexaad waa maxay qodobka saddexaad aad buu muhiim u yahay waa qodobka horanaya deegaanka guusha haddaad rabto inaad samaysato waa in saaxiibka uu noqdo qof kula mid ah oo waxa aad raadinayso raadinaya ahdaaftaad rabto inaad xaqiijiso waa inuu kula xaqiijinaya markastoo saaxiibka uu yahay mid ku garab taagan oo waxaan aad adiguna ka shaqaynayso raba inuu ka shaqeeyo guusha way ku fudaanaysa waxaad rabtaa inaad wax akhrisato oo akhriska aad ku ficnaato waxaad saaxiib la noqotay laba qof oo akhriska jecel oo iyaguna raba inay wax akhristaan maxay imanaya markaa inaad israacdaan oo aad ka wada sheekaysataan buugaga ugu fiican ee sanadkan soo baxay buugag aad soo qaadataan
library wada tagtaan meel cidla wada tagtaan wax akhrisataan si fiican u raaxaysataan laakiin ka waran labadan kula saaxiibka haday gabi ahaanba ka soo horjeedaan akhriska ka war mar alla markaad akhris soo hadal qaado kubaday kaaga sheekeynayaan mar alla markaad akhris soo hadal qaado tahriib bay kaaga sheekeynayaan way ku bedelayaan marka waxa lagu leeyahay waa laf dhabar war saaxiibkaaga kula socda iyo asxaabtaadu ha noqdaan qaar ku horsada deegaanka guusha oo guushan aad raadinaysiyo wax qabadkan waa inay iyaguna aaminsan yihiin sida daraadad waa inaad waxaanu xasuusanahay xadiiska caanka ee rasuulullaahi maxamed uu sheegay oranaya qofka la saaxiiba qof wanaagsan iyo qof xun farqi baa u dhaxeeya qof wanaagsan la saaxiiba wuxuu la mid yahay qof ag fadhiistay qof cadar iyo miski iibinaya qofka maxaad ka helaysaa ama ur fiican baad ka helaysaa ama waad ka iibsanaysaa intaba faa'iido kugu jirta laakiin qofka ka waran la fadhiista qof dab shidaaya naafiq alkiir qofka la fadhiista ka waran kaasi wax laga yaabaa ama in ur xun ka helo ama uu muxuu dambaskiisu ku soo duulo ama runtiida uu kuwa gubto dabkuba soo gaadha dhici karta marka saaxiibka xun waa qofkaas weeyaan oo qofka dabkiisu ku soo gaadhayo ee ku gubaya markastaba marka wax xaqiiqo jirto weeyaan haddii aanad saaxiibka kula joogo ka agdhow aanu wanaagsanayn oo ahdaaftaad adigu rabta inaad xaqiijiso aanu kula xaqiijinayn oo isku meel aydan u wada jeedin qofkaas ku jiidanaya آخركنا ودادو كالو منيا marka waa laf dhabar inaad xulato dad kula ahdaafta dad ay ka go'antay inay wax qabsadaan dad wax barashada jecel dad wanaag jecel waa inaad saaxiib la noqoto qodob runtii afraad waxa weeye qodob aad u muhiim ah qodobkan wuxuu ku leeyahay war deegaanka guusha hadaad rabta inaad samayso oo deegaanku noqdo deegaan ku harsado inaad guulaysato waa inaad noqotaa waa inaad go'aan gaadha ballan waa inaad qaadaa inaad waxa aad rabto inaad xaqiijiso inaanad ka noqonin ballan ayaad ku gaadhaysaa ballantaa laakiinse maxaa wataa haddii ballantaa ka baxdo waxaa la socda ciqaabba la socoto marka haddii aad samayso ballan ay ku xidhan tahay shay runtii adag inaad ka baxdaa ayaa ku xidhan oo haddaad ka baxdo ciqaabba ka ratimi karta ama wax kaloo adag ba ka ratimi kara taasina waxa ku keeni kartaa deegaanka wuxuu ku horseedaya wanaag inaad samayso tusaale fiican aan ku siiyo waxaad ku ballan qaaday inaad sigaarka iska joojiso ayaad go'aan ku qaadatay go'aanka maxaad ku adkaysay ballan kale oo xaaskaaga baad ku tiri haddaad igu arato anoo xabad sigaar cabaya maalintaa waxaad igu leedahay $20 baad igu leedahay marka soo xabad sigaar aad cabtad shidato xaaskaaga 20 bay kugu yeelanaysaa haddii qofku go'aan noocaas qaato maxay imanaya deegaanka noocaas wuxuu ku horseedaya inaad sigaarka joojisaba waayo marka aad dhowr jeer lacag bixiso oo xajiyada aad u dirto aakhirkood kululaanaysa adoo joojiyeed arkaysaa waan xaqiiqo dhacday nin baa dhakhtar u tagay dhakhtarkiiba ku yiri dhakhtar waxaan rabaa sigaarka inaan joojiyo dhakhtarkiiba ku yiri okay weeyaan sharti baan kula galay oo waa maxay marka soo xabad sigaar cabto message baad soo diraysa aad leedahay sigaar baan cabay intaas uu soo sheeg wuxuu qaatay sheekadu inay fududahay marka hore laakiin wax kale ka soo baxay markuu sida uu tagay uu sigaarkii dhowr cisho joojiyay ayuu maalin dambe xabad shitay markuu sida u shitay la ballan buu galay doctorkii buu qoray message uu leeyahay doctor xabad sigaaran cab wuxuu yiri ma kan dhowr jeer uu qoray message noocaas anigii baa isla yaabay markii dambe anigii baa naftayda ay ka khashishay inaan mar kale hadana message u qoro oo niraado sigaar baan cabay maxay taasi ugu keentay sigaarka inaan joojiyo marka waxa lagu leeyahay haddaad abuurto deegaan oranaya ballan la gal naftaada ballanta haday ka baxdana ka reetimato ciqaaba ka reetimanto ballanta haddaad gashana waxay keensanaysaa inaad runtii hadafka xaqiijiso tusaalahan social media ha soo gasho aad war maanta laga bilaabo haddaad igu aragtaan anigoo sawir soo dhigaya aan fiicnayn comment ka adigu jawaabaysan ha noqdo comment adag igu jawaaba intaas soo qorto maxaa imaanaya dee haddaad sawir xun soo dhigto in si adag lagu komangareeso maaha waa joojinaysa waayo waxaad ballan baad la gashay dadkii marka ballan inaad la gasho naftaada oo ay ka ratimayso ciqaab kale waxay keensanaysaa deegaankii guusha inuu sidii aad rabtay oo u socdo aanad ka bixin laakiin shardi baa wada la socda shardigaas waa maxay ahdaaftaada mustaqbalkaad xaqiijinayso ee dhinaca wanaagsan iyada ballan haddaad la galayso dadka ha u sheegin haddaad si babliga dadka ula soo tiraado waxaan rabaa inaan xaqiijiyo fikradda noocaasa ee ogaada
وهذا كسو بخوايا سدا سمايا هادو خطر بي ku gelin karta laakiin se waxyaalaha inta badan aad joojinayso ee ku gaarka cid kale aanay la socon inaad reerkaaga iyo xaaskaaga iyo caruurtaada iyo deegaanada ku gaar asxaabtaada aad tirado war waxaasan joojinaya hadii aad igu arataan anigu sameynaya waxa igu sameeya ama waxa igu dhaha ama waxa iga qaada waa arin runtii ku xakameyn karta naftaadana wanaag u horseedi karta marka qodobkaasina waa qodob muhiim ah qodobka shanaad ee deegaanka guusha ku horseedaya waa maxay ee buuguna uu sheegaya inaad soocato afkaarta wanaagsan ee ku horseedaysa guusha waa muhiimtaas waayo waxa la yiri qofku markuu wax dhageysto ama uu wax daawado ama uu wax akhriyo afkaar baa gasha afkaarta ku gashay saameyn bay kugu sameynaysaa hadhow waad ka fakaraysaa qaabkaad u fakaraysaa uu isbedelaya marka waxa lagu leeyahay war afkaarta aad daawanayso ama aad dhageysanayso ama aad akhriyayso ha noqoto afkaar kugu caawinaysa guusha iyo hawshaad u socoto imka caawa hadaad wax dhageysato markaad habeenkii seexanayso wax marka maskaxda ku soo dhacaya wax maanta dhageysatay haddii qof yar ciyaal uu filim daawado filimkaas hadduu dagaal ku saabsan yahay maxay maada qofkii yaraa inuu isku dayo inuu dagaalkii sameeyaba hadduu seef yahay inuu loox soo qaato seef iyo uu silado seef looxan seef ka sameey way afkaarta uu daawaday wixii indhihiisu daawadeen ayuu rabaa inuu runtii si practical u sameeyo marka waxa lagu leeyahay waa haddaad rabto inaad deegaanka guushaad hagaajiso deegaanka kugu hareeraysan kaliya maaha shakhsi maaha mana aha alaab iyo ashyaa afkaar baa kugu hareeraysan wax ka soo daawata afkaar bay ku sheegayaan wax ka soo dhageysta afkaar bay ku sheegayaan wax ka soo akhrida afkaar baa la socda haddaba adigu waa inaad soo soocataa afkaarta wanaagsan ee ku horseedaysa guusha haddii aad rabto inaad sigaarka joojiso waa inaad dhageysataa muxaadaraadka ka sheekeynaya khatarta uu leeyahay sigaarku hadda afkaarta dhageysato oo maanta dhageysato oo wiig wado automatically waxa kugu dhalanaya sigaarku inuu xun yahay fikirkaagu isbedelaya sigaarka waa joojinaysa haddaad salaada jamaacada aad ku liidato oo aanad aad ugu fiicnayn haddaad dhageysato muxaadaro culimadu kaga sheekanayaan fadliga salaada jamaacada iyo inay waajib tahay iyo aakhir ajarkaad helayso haddaad muxaadarada weeg aad wado automatically waa isbedelaysa waxaad arkaysaa adigoo dariiqi toos kaa qaatay maxaa dhacay deegaan fiican baad samaysayoo afkaartaadii baad soo soocatay afkaar wanaagsan oo ku horseeda guushii baad keensatay meeshii waadigan dhageystayba marka qodobkan waa laf dhabar daawade waana xaqiiqo la tijaabiyey haddii aad rabto inaad guusha dhinaca guusha u jeesato inaad ahdaaftaada gaadho ahdaafta waa inaad dhageysataa afkaarta kugu caawinaya ganacsi baad rabtaa inaad samayso soo maaha application baad rabtaa inaad samayso soo maaha waa inaad daawataa muxaadaraad ku saabsan lectures ku saabsan applicationska iyo sida loo sameeyo iyo ganacsiga sida loo abuuro haddaad xalaqaad xoogay ka dhageysato fikir badan baad helaysaa waxaad arkaysaa adigoo fikirkaagu isbedelay oo horumarka u jeestay marka waxa lagu leeyahay waad haddaad rabto inaad deegaankaagu noqdo deegaan ku horseeda inaad waxaad rabtay mustaqbalkaaga aad qabsato waa inaad afkaarta ku soo galaysa ay noqdaa afkaar sax ah oo ku horseedaysa in muxuu ahaay dariiqaasi wanaagsan aad qaado taasi maxay ku iman kartaa waxa dhagahaagu ay maqlayaan waxa indhahaagu arkayaan iyo waxaad akhriyayso iyo waxaad maqlayso waxba in noqdaan wax ku horseedaya wanaag iyo khayr haddii taa aanad samaynin oo dhageysato kuwa dhinaca kale ah total waa isbedelaysa maanta leel haddaad dhageysato Facebook iyo YouTube dad wax caayaya oo qabyaalad ka sheekayna maanta haddaad dhageysato haddaad arrinta muddo wado maxaa imanaya adna inaad qabyaalada ku dhaqanto way maskaxdaada gelaysaa marka dambe laakiin haddaad dhageysato dad wanaagsan oo khayr wada iyo wanaagooda aad dhageysato si maalinlaa u dhageysato maxaa imanaya afkaartaadu inay isbedesho oo dhinaca wanaagga isu bedesho marka qodobkan waa qodobada laf dhabarka ah saadarteed waxaan kugula talinayaa maalin kasta jadwal samayso aad ku dhageysanayso ama aad ku akhriyayso ama aad ku daawanayso muuqaal wanaagsan oo aakhiri adduunka khayr ku horseedaya labadaba aakhirana khayr ku horseedaya adduunkana khayr ku horseedaya taa haddaad markaa maalin kasta aad dhageysato dhinaca horumarka ayaad u dhaqaaqaysa markaa shantaa qodob hadda aan sheegnay waa shantaa qodob ee nuxurka markaan buugga aan eegno ay ku soo ururayaan waana shanta qodob ee abuura deegaanka wanaagsan haddii aad si kasta wax aad u dadaasho oo deegaanka aanu ahayn deegaan wanaagsan oo ku horseeda horumarka ma dhaqaaqaysid markaa kala shantaa intaad qorato
isku day inaad ku dhaqanto deegaankaaga inaad hagaajiso defaultkaaga waxala kugu hareeraysan aad wax ka bedesho asxaabtaada wax ka bedesho aad go'aamo qaadato aad naftaada wax ku waajibinayso aad runtii dhageysato oo muxuu akhrido wax ku anfacaya